qaraxyada oo loo adeegsaday baabuur lagu soo xiray waxyaabaha qarxaha ayaa maanta lagu weeraray xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya sidoo kalena xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa gudaha u galay dhismaha wasaaradda oo sidoo kale la degan tahay wasaaradda howlaha guud waxa goobta sidoo kale ku dhow taliska guud ee qaybta bartamaha gobolka Banaadir xarumo kale oo goobtaasi ku yaala ayaa sidoo kale go'doon ku jira cabsi weerar laga qabo oo maalmo badan Muqdisho wadnaha farta lagu hayay kadib ayaa maanta barqadii waxa weerar toos ah oo qarax gaari ku bilowday al-shabaab ay ku qaadeen xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya oo ku taala degmada Shangaani qaraxa hore oo gaari loo adeegsaday markii uu dhacay ayay dabli hubaysan oo ilaa iminka tiradooda la ogeyn gudaha u galeen xarunta wasaaradda daqiiqada kadib ayaana sidoo kale gaari kale oo la rumaysan yahay in dabliyada gudaha gashay ay saarnaayeen oo qarxay waxa kale oo halka ay xilligan ka dhex dagaalamayaan al-shabaab aad ugu dhow oo dhismo ahaan garabka ku haya wasaaradda howlaha guud iyo sidoo kale xarunta qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir kuwaasi oo uu weerar ku saameeyay macadda tirada dhimasho iyo dhaawac sidoo kale wali lama oga tirada dadka ku go'doonsan dhismaha ay dabliyada gudaha ugu jiraan balse xaaladda ayaa sidan ah oo rasaasta isdhaafsanayaan ciidamada iyo kuwa weerarka dhismaha ku galay agaasimaha wasaaradda howlaha guud Yariso oo xarunta wasaaraddiisu ku dhigan tahay dhismaha ay shabaab ka dhex dagaalamayaan xilligan ayaa keenan u sheegay in qaar badan oo dadkii dhismaha ku sugnaa ay iska tuureen daaqadaha kuwana ay wali ku go'doonsan yihiin meesha wili xabadu waa ka dhex socotaa marka wax yar ka bacdi aan sii karnaa wixii dad naga gaaray wixii kala akhbar waa ku jiraan xabada ka dhex socota may wallahi waxa ka wili ma hayno kullay wixii markay dhaceen dadka wax la sugayo ma daaqadaha laga wada wili ma arag laakiin wili daba meesha ku jiro ku go'doonsan annaga hadda saldhig bariya joognaa waa u dhownahay meesha hadda wax yar markii la soo abtiraa waxa heli doonaa xaqiiqda ma xabada socota laakiin waxa iska sii dabayar waay shaqaalaha wasaaradda inta ogtahay maxaa dhimashay dhaawac aragtay wallahi hadda wiil iyo gabar dhaawac waa la ii sheegay wax gudaha ku dhaawacan oo gudaha ku jirana war uma hayn taas qiyaasayna waxa meesha u taaganaaba taas shakigaas qabta waxa halka ay qaraxyada ka dhaceen weerarkan uu ka socdo xilligan aad ugu dhowdahay isgoyska Jubba ee Muqdisho waana wadada kaliya ee aagaasi loo ogolaa in ay maraan gaadiidka dadweynaha dad badan ayaa dhintay kuwa kalena oo badanna waa ay dhaawacmeen gaadiidka ambulance ee Amin Ambulance waxa ay sheegeen in ay daadgureeyeen dhaawacyada dad 10 qof ka badan wadada isku xirta xirada barakacayaasha badbaado ee degmada Dharkeelle iyo Ex Control Afgooyo ayaa waxa qarax lagu la beegsaday baabuur ay ciidamada dawladda saarnaayeen qaraxan oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxa la eegtay gaari ay saarnaayeen askar ka tirsan ciidamada militariga dawladda federaalka Soomaaliya qaraxyadan oo laba ah ayaa mid kamid ah waxa uu haleelay gaarigii ay askartu saarneed halka qaraxa kale uu goob cidla ka dhacay waxa ku geeriyooday 3 askari oo kamid ahaa askartii gaariga saarneed halka dhaawacan uu inta ka badan yahay goob jooga la hadlay idaacada kulmiye ayaa arinka u xaqiijiyay badbaado irideedu ka dhacay gaari meesha mariyaa loo geliyo meesha gaariga waxa uu kala geliyo gaari dulbanaana waay baawta bii kaafta dulbanaanka waay oo ciidamadu qaasaan dibasho waxa arkay 3 iyo dhaawac kale ciidamada biliska soo gaaray wallahi hadda qaraxii hore dadkaas ku dhinteen kii dambana mid kale ka dhacay meesha kii dambana ciidamada biliska ka soo gaaray oo dadka ka kala ceyriyay kii dambana inna kuma gaari ay loo miina الله سبحانه عيدو بريسكا كقول يستين شعبك ماشي كلا يعيان ما شغال بريسكا شغال تايسا wadooyinka soo gala Ex Control Afgooyo iyo kuwa ka baxa ayaa inta badan waxa ka dhaca miinooyinka kuwa dhulka lagu aaso waxaana inta badan lala beegsadaa gaadiidka ay saaran yihiin mas'uuliyiinta dawladda iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya